safiirka Soomaaliland fadhiya dalkani Kenya Baasha Cawil Xaaji Cumar ayaa jaaliyada Soomaaliland ku dhaqan dalkani Kenya la yeeshay kulan guud oo dhammaan jaaliyada Soomaaliland ku dhaqan dalkani Kenya odayaal waxgarad cuqaal siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ka tirsan jaaliyada Soomaaliland ku dhaqan dalkani Kenya uu la yeelanayay kulankaas oo qayb ka ah kulamo go'goos oo hore jaaliyada Soomaaliland ku dhaqan dalkani Kenya si gooni-gooniya uu safiirku la yeeshay kulankan oo qayb ka ah kulamada safaaradda iyo jaaliyada Soomaaliland ku dhaqan dalkani Kenya ay isku xog wareysanayeen isla markaasna ujeedadiisu ahayd sidii loo dardargelin lahaa qadiyadda iyo hadafka Soomaaliland ee higsigiisu yahay sidii geyga Soomaaliland loo gaarsiin lahaa ixtiraaf buuxa kulankan oo safiirka uu ku wehelinayay ergeyga gaarka ee Soomaaliland u qaabilsan East Africa Community Cabdillaahi Cabdi Cali Dhakaar ayaa ugu horeyn halkaasi waxa dhowr heesoodo wadaniga ka soo jeedisay fanaanada caanka ah ee Saare Axmed Cabdillaahi Saareyleys oo howlo socdaal ku joogta dalkani Kenya waxaana sidoo kale hadallo kooban halkaasi ka soo jeediyay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliland ka tirsan dalkan Kenya بعد السلام سفير سودو كسودو كينيا waxaan kala salaamayaa waxaan baliyeen mudan safiirkeena hore inoogu fadhiyay Cabdillaahi Dhakaar ma sha Allah meesha fiican oo safaaradda soo gaarsiiyay safiirkii kalena uu ku wareejiyay safiir waan kula shaqeyn doonaa hadaan nahay ganacsatada Soomaaliland maalgashigii dekada berbera iyo wax qabad badan oo safiirku ka wujiyay wadankaas من لم يحلكنا قاه وضع الأمر أفريقيا أما برج أفريقيا وحنتشيني إنه إذا كنا أتصل لما يعدوا عقبا دونتان أي هل كان يسهل دونتان سومالي لا اعترافه أنا قاعد كينيان سوماليلاندرز كسوكو وداني هذا هو representative أنا قاعد هاي first and foremost كينيان سوماليلاندا وحندوني أورتين إذا كنا أوقاتان سوماليلاند كينيان كالكن شوغا dad badan baa jira ku guuleystay shaqooyinkay qabaneen waxaanu haysanaa CS Amina Mohamed waxaanu haysanaa Chief Justice Ibrahim waxaanu haysanaa Assistant Minister Rashid Abdi Aman MCAs MPL iyo Senator oo yeelan doona insha Allah so many directors wixii important Somaliland la doonayna loo qabto we are ready to work baahiyay kow inay ictiraaf la doontaan inaa safiirka la shaqeeysan inaa ku soo ururisaan wax laalo wixii aawar haysan waayo waa nasiib wanaagsantiin nis safiira oo dhalinyaro ah oo kow dhowr halgan la soo maray halgankii dalka lagu xoreeyay soo galay halgankii nabadeynta qayb ka soo qaatay halgankii dalka dibisdada loogu aasay wax ka soo qaatay investmentkii ka warhaysaan oo shalay ay hay'ado Dubai ka soo qaatay maantana investment kale ka wada dalkan Kenya ina wax la qabataan waxaana ugu dambeyntii halkaasi hadallo isugu jira dardaaran tusaale iyo taariikhda qotada dheer uu soo maray geyga Soomaaliland ka soo jeediyay ergeyga gaarka ee Soomaaliland u qaabilsan East Africa Community Cabdillaahi Cabdi Cali Dhakaar iyo sidoo kale safiirka Soomaaliland fadhiya dalkani Kenya Baasha Cawil Xaaji Cumar marka walaalayaal hadal iyo dhamaantii safiirkeena cusub wuxuu u baahan yahay in la gacan qabto in la taageero lagu taageero aqoontiina iyo taladiina iyo wixii aad ku tari kartaanba anigu baan u baahanahay sidaadii ila shaqeyn jirteen ayaan inaga baryayaa inaad sida oo kale safiirkeena cusub aad taageerada siisaan aad u mahadsantihiin intiina halkan oo dhan ka soo qayb galay xafladan sharafta leh iyo inta qaabisayba dhalinyarada iyo bulshada qaybteeda kala gedisan waxaan aad iyo aad u mahadsantihiin caawada idinkoo isku dhan oo min gobol ilaa gobol leh ayaa timaadeen xafladda oo aad halkan madaxda joogta iyo dhammaantood ugu soo dhaweyseen waan runtii ka mahad celinaynaa waxaan kaloo jeclahay inaan ku furo oo hadalka ku bilaabo salaan iyo dardaaran gaan ka sidno madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo isagu runtii إن شاء الله وقت يوسع محرم الوجين دون مرة محركة إنه يمادو إنه وسط كسي بلارنا أي كسي دون دون هذا الله إدنا ومدو هدانا يسمى هذا علم ومدو هدانا قفك شيء قفك وحاء شيء تدك بتشير معهم أو بتشير من غرام إن تاريخ قف ولا مال بكسر قري قف ولا جمهورية الصومال أنا ما أنت عن حرسنا دور بكلها معها
taariikh ku kooban deegaan reer gobol xisbi intaba ma aha waa taariikh dhammaanteen aynu wadaagno giddigeenna aynu qayb ku lahayn marka aynu somaliland ka hadlayno deegaan iyo dad iyo reer iyo xisbi toona ka hadli mayno waxaynu ku hadlaynaa qaranna waxa lagu noqdayo oo laisku midaysan yahay cabdilaahi cabdi cali warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somalilan magaalada nairobi